haddii marka loo malaynayay nabiga intii kartoon laga sameeyo rusuumaad musii'a lirasuul la sameeyo inay muslimiintu shibinta iska dhahaan halkaas arrintu ay ku joogsanayso maanta Faransiis iyo intii arrintaas geysatay meel ay istaagaan iyo si ay yeelaan ayay garan la'yihiin waana midda keentay madaxweynaha Faransiisku markuu arkay falcelinta ay muslimiintu sameeyeen dalab asaga xaqiisa ka yimid inuu kanaalka jaziira ee afka carabiga ku hadla asaga uu dalbado berigii horena ay ahaan jirtay nimankaas midna reer galbeedka madaxda ah in muqaabala la yeesho inay adkaan jirtay oo kibir ku jira daraadii inay warbixin siiyaan ama waraysiyo siiyaan ay adkaan jirtay ayaa waxay gaartay dhibaatada qabsatay daraadeed inuu asaga soo degdego oo waliba intii maxay ahayd aan la soo gelinin markii arrinta laga sameeyay laga duubay oo Twitterkiisa ku soo qoro oo yiraahdo galabta kanaalka jaziira la yiraahdo ayaan warbixin siiyay hal la dhageyso si yani meesha ay ka gaartay muslimiinta inta fiican ee dadaalka badan ee masaajidada ka soo baxaysa ee dhalinyarada ah kuwaas waaba la isku ogaayay waa noocaas falcelinta ugu daran ee ugu qoskal badan waxa kamid aha mid Lubnaani ah wadanka Lubnaan oo dukaan khamra leh khamru gadgada markaas wuxuu sameeyay wuxuu yiri khamrada Faransiiska dhinac iga bixiya la gadi maayo ayada khamrada Faransiisku dhinac u saaray waa ninkaas hada khamrada gadgadaay ayaa banaanka iska dhigay khamradii oo yiri tan Faransiiska kuma jirto midda laga ganacsanayo maxaa u malaynaa kii khamrada lahaa haduu saaleeyahay الركع السجود ومساجد الجوجا أو وحبرتي سلابي النبي ودي فاعيان مركز النبي صلى الله عليه وسلم إلهي يا إلهنا والله يعصمك من الناس مركز أيها وحيلتها هاي شخصية إسلامية تعبان كرو حالي وحكوها لا كنالك الجزيرة ممكن يصير من الحين فرانسيسكو محا مسلمين تا يعني أصور المشكلة وحا هي ستا دد كيسان عضو كرباء إن النبي لعايو وحلقة الشيء kuwa cod bixinaya ayaa saas codka ku bixinaya kuwaas codkoodana kama maarmago raba muslimiinta iyo dhaqaalahan ay go'doominayaanna hadii dhaqaalihiisu hoos u dhaco codkii haddana hoos u dhacay waxa leeyahay dhaqaalihii sanad ka dhigtay lama dooranayo marka bayna naarayna la yiraahdo laba dab dhexdood ayuu galay asagana isgeliyay marka diintaan ilaahay baa iskale rasuulka sallallahu alayhi wasallam af ay ku taageen waxba uga qaadi maayaan quraankaana inoo sheego ilaahay wuxuu yiri man kaana yadhunnu ألا ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسوم إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ قفك لينا إلهي نوسى النبي وقرقاريني وحالي السماء أما ميل كوري حركة كسو الله لاذيو ها إسدلدل قورت انتو قشتو كبعدين بالوحي أسوء سمية أما فلقاديد وقيستي إنا يوحكتر تي إنكاله هفيريو قل موتوا بغيدكم عردين كل انتالي نبي وحكا قادم يسان إنك وحينوتي مركز دا مسلمين نهي لا تحسبوه شرا لكم بل هو خير لكم نبي مركي حاسكيس ugu been abuurtay oo ifkii la sameeyay aayadii soo day waxa kamid aha arintaas sayada munaafiqiintu ay sameeyeen ha u maleeyeen in dib idin tahay qoyska Abu Bakr la hadlay bal huwa khayr lakum khayr adunya hada muslimiinta khayr u yahayo koo horta waxay ka faa'iideen dareenkoodii ayaa midoobay oo muslimiinta meel ay joogaanba inay walaalihiin ayaa soo baxday gaaladu waxay inoo guuleysteen waxay ahayd إننا إنا كلا قيبيان فرق تسد قيبي أو حكم هذا وانسكو صوفا كنا مسلمين تاني مدول بمشي وجوجي لكن خمرة الجدا يعاصي أها ويراد خمرة أيام مقاطعين أيام مسلمين تهال كاميرا مركز درين كاس مدوبي وحو كاني مسلمين تاني هو السودان لأنك كلام بري هورا مسلمين تاني واحد كسر القصة مايو أيها هذانا الشب إسكت هجرين ما أنت لبدنا على فائدة مقابنا هذا هلا الحاجة يعني أودنا ودنا وحين وصل بحي تركي اللي يراهدو oo xalay wada dhageysanaysan madaxweynaha Faransiiska hatta hal mar ma soo qaadayo madaxweynaha Turkiga iyo dawladda Turkiga asagoo og meesha yaani muqaadacada looga dhawaaqay dhaqaalihiisa khatar lagu galiyay hubka iyo casriga iyo waxyaabaha tiknoolajiyada horumar laga gaaray inuu wadankaas yahay kuma dhaco afkiisana kuma taagi karo kuwaas asaas markaas wuxuu u soo leexanayaa meelahan soke iyo dad wuxuu ku leeyahay marka aan islaamku dhan kama soo horjeedeen koox argagixis iyo kooxa argagixis wax halkaas uu la aadaaya war meeshan argagixis salaam ma taale rasuulka sallallahu alayhi wasallam wa muslimiinta oo dhan rasuulkooda Allahu ghaayatuna war rasuul qudwatuna yani muslimiinta oo dhan yoolkooduna waa ilaahay raaliyaashiisa inay helaan rasuulkuna wuxuu yahay qudwa iyo ku dayasho marka aad iyo aad u mahadsantiin dhalinyarada soo qaban qaabisay oo inta isugu imaatay
waxay ka rideen dadkeenan magaalada muqdisho jooga oo yacni ayaguna dhinac kale ka dadaalay laakiin dhalinyaradan isxil qaantay ee maanta isugu imaadeen beerta nabadda oo hoolkan isugu imaadeen shicaarkooda iyo alkudhigooduna uu yahay nabiga gargaarkiisa iyo difaaciisa oo kulli wada dhalinyaro ah ummad soo noolaatay oo dhalinyaradeedu ay qiiro islaami ay ku jirto ayaa soo baxday marka ummadda islaamka way yara xanuunsataa laakiin ma dhimato marka inaan xanuunkii aan ka soo caafimaadayno ayay ku tusaysaa waxaan ku miisaalan kuna soo gebagabinayaa ummaduhu iyo qofku waa isku mid qofku wuu dhashaa wuu koraa wuu duqoobaa wuu dhintaa ummaduhuna waa saas oo kale ayaraanay ku bilowdaan way koraan ka bacdina dacfi ayaa ku dhaca haddii marka maalan qof caafimaad qabay uu xanuunsado oo uu aamuso oo sii aamuso oo sariir ku ururo oo uu dhaqaaqi waayo oo lugiisa la isku aadiyo qofkaas maxaa la filayaa inuu dhintaa la filayaa laakiin qof dhinaca kale u gedi sariir saaraa oo aamusnaa oon dhaqaaqi karin oon lugta qaadi karin oo gacan qaadi karin haddii maalin ka bacdi la arko lugaa dhaqaaqday lugti kalena way dhaqaaqday gacanaa dhaqaaqday madaxaa dhaqaaqay qofkii wuu soo fariistay markuu soo fariistay wuu maxaa la filayaa qof kor u socdaa la filayaa marka ummadda islaamka ah shalay waxay ahayd hoosay usii socotay 100 sano ka hor waxaa gadaal taariikhda u akhrisaa 1920 isticmaalka reer Yurub caalamul islaami ayuu qayb u kala googoynayay hoosaa loo sii socday waa la sii hurdaayay 1920 waddankeena Soomaaliya xataa markii Ingiriiska iyo isticmaalka Ingiriiska iyo yani awooyaasheena ay la dagaalayeen 1920 2020 hadda joognaa waa 100 sano ka bacdi rasuulka sallallahu alayhi wasallam wuxuu noogu bishaareeyay inna allaha sayab'athu li hadhihi al-umma ala ra'si kulli 100 sana man yujaddidu laha diinaha ilaahi ummadan wuxuu u diyaarinaya u soo saaraya 100 sanaba dad manta waxa loo isticmaalaa dad badan waa loo isticmaalaa qofna waa loo isticmaalaa marka man yujaddidu laha tajdiidku wuxuu yahay habkay u noolaayeen ayay cusboonaysiinayeen habkay u fikirayeen ayay cusboonaysiinayeen dhaqaalihii ka baabay ayay cusboonaysiinayeen qalabkii iyo saanadii iyo wixii ay isku difaaci lahayn ayay cusboonaysiinayeen marka Turkiga hadda wadankan aad aragteen sida uu cimlaaq u yahay 1920 ilaa 24 waa markii dawladda Uthmaniya afka dhulka loo galiyay oo la dhihi jiray hal kala qaybsado tariikat ar-rajul marid ninkii xanuunsanaa meelihii uu xukumi jiray hal kala qaybsado oo Faransiiskan iyo Ingiriiskan ay ahaayeen kuwii ugu badan ee kala qaybsanayay dhulkii ay muslimiintu ay lahaayeen laakiin maanta 100 sano ka bacdi heshiiskii ay Turkiga la saxiixdeen tallaabo ma qaadi kartid waxaas ma samaysan kartid waxay kaga eg tahay 2023 maxaa la filayaa hadda maxaa ku muuqda Armenia iyo Azerbaijan la fiiri Nagorno-Karabakh maxaa ka dhacay gobolkan oo midna Azerbaijan dadka muslimiinta ay leeyihiin 30 sano ayaa waxa haystay Armenia Turkiga kaalmeeyay iska celiyeen waxay siiyeen qalabkan ay iskaga celin karaan ee diyaaradahan ay cidna wadin ee raadaaradii gaaladu ay qaban la yihiin baad duqeyn markaas waxay ku faaneen markay waxoogaa yar meel yar taayeen kuwa gaalada ah khatar aan nahay moogtay maxaa sameeyeen diyaaradihii wayna arki waayeen baterigan ka bixinay kulaha haddii bateriga la geliyo signal u bixina way nagu dhufanayeen waa dadaalnay bateri la'aan aan ka dhig oo bateri la'aan laga dhiga ma marka sharaf ah waa cabsi meeshii soo ku shaqeyn haddii bateri laga bixiyo ma shaqeynayaan waxa la rabeen maxay ahayd inuusan shaqeyn yukhribuna buyutahum biaydihim wa aydi almu'minina fa'tabiru ya ulul absar yani markii dadku ay yaabaan ay dhahan xageena laga jira ilaahay muslimiinta cizo iyo sharaf ayuu yeelaa marka diinta way guuleysanaysaa shaka kuma jiro baabuurkan muslimiintu dhaqaaqaya adi maxaa laga rabaa ayuu hal muslim baabuur guuleysanaya oo socda ma soo koree oo sharaf ma yeelanay mise waa baabuur waxa ka tagay waa iska fadhine hadaad soo raacdana oo dhinaca diinta ka xoojisana sharafaad yeelanay hadaad ka hartana wa in tatawallu yastabdil qauman ghayrakum thumma la yakun amthalakum marka waxa lagu ducaystaa allahumma istakhdimna wala tastabdilna ilaahuna isticmaal oo aan ku shaqeyn oo diintaada u adeegno wala tastabdilna ilaahu hana bedelin maxaa yeelay adiga hadaad diin la'aan noqoto waxba ma noqonaysid laakiin diintu adiga la'aanta waxay noqonay dad kale diintu helaysaa marka inaga sharaf inoo tahay inaan nabigeena difaacno inaga sharaf inoo tahay mawaaqif inaynu yeelano inaga sharaf inoo tahay culimada ay tilmaamayeen dhalinyaradeennu inay ku daydaan asxaabtii iyo dhalinyaradii nabiga uu tarbiyay waxa la yiraahdaa hadaan xataa gaari karayn tashabbahu birrijali in lam takunu mithlahum hatta isu ekaysiya
dadkii ragga ah haddaydan ayagoo kale noqon karin fa ina tashabuha birrijaali falaaxu hataa isu ekaysiinta rag lagu noqonayo oo lagu guulaysanayo marka aadaan idinka mahad celinaynaa dhalinyaradii soo qaban qaabisay culimadii kasoo qayb gashay warbaahinta nagu sharaftay inay arrintan kasoo qayb galaan marka waxaan leenahay soomaaliyay reer muqdisho u duceeya dhalinyaradiina iyo culimadiina waxay idinka qaadeen arrin muhiim ahayd oo dareen muujin oo ay muujiyeen nabigaana ka soo gaaray sallallahu alayhi wasallam in dareenka la muujiyo markii oo umradii cumreysanayay oo intay gaalada u diideen markii hore yaa markuu soo laabtay waxay suuqa galiyeen gaalada intay banaanka soo istaagaan dad Madiina ka imaaday oo qandhadii Madiina ay daciifisay ayaa idin imaan doona ayaa la maqlay nabigu muxuu ku yiri saasayna dhahayaan waxa sameeysan dhinaca gaaladu ay naga arkayeen ay taagan yihiin ina fiirsanay inaan dad daciif nahay oo qandhadii Madiina ay daciifisay haday u maleynaa waxa sameeysan muruqa ama dhinaca midna markii cimraysanay ama la xajinayo marada cad waxa la sameeyaa muruqana la soo bixiyaa oo waxba ayna saarnayn marada hoosa laga marinaa korka la saaranaya muruqa waa meeshii ay gaaladu ku aadanayeen muruq iyo xoog la tusinaya markaas waxay arkayaan dad muruqoodu go'an yahay oo tawaafay kacbadii way cabsanayaan marka caalam islaami waxa maanta ka socda waxay tahay muslimiintii way soo baxeen maxaa naga qaadaysay way Allahu akbar walillahi alhamd takbir Allahu akbar walillahi alhamd hada